بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. maanta waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa mowduuc muhiim ah oo waqtigiisa taagan kaas oo ah maxaa kula gudboon hadii musharaxaaga laga guuleysto. waxay nagu soo foolay doorashadii oo ka hadhay muddo kooban. dhammaan taageerayaasha sitaa codad kaarkii codbixintu waxay diyaar u yihiin inay u codeeyaan xisbiga ay taageersan yihiin iyagoo waliba xamaasad badan u qaba. xaqiiqadu laakiin waxay tahay saddex xisbi midun ayaa guuleysanaya, laba xisbiya kalena way hadhayaan. taa micnaheedu waxa weeyaan taageerayaasha xisbiyada mid ka mid ah ayuun baa dareemaya farxad iyo guul, laakiin labada xisbiya kale waxa laga yaabaa taageerayaashoodu inay dareemaan warwar, warbahaal iyo waliba u qaadan waayo noloshoodii oo dhan iyo waqtigoodii oo dhan waxa ay geliyeen taageerada xisbiyada. waxaad arkaysaa iyagoo Facebook kaga hadlaya, iyagoo maqaaxiyo kaga hadlaya, noloshoodii oo dhan ayaa ay la falgashay. marka haddii uu guul dareysto qofka noocaasi waxaa laga yaabaa inuu noloshiisu ay kala dhantaalanto warwar, warbahaal iyo u qaadan awgeed. musharaxiinta xisbiyadu iyagu waa niman siyaasiyiin ah, waa niman soo bartay sida loo jabo, waa niman la haysta sidii ay ula qabsan lahaayeen jabka ku dhaca. laakiin shicibka iyo taageerayaasha ayaa anigu aad iyo aad ugu warwarsanahay, waayo waxa laga yaabaa in noloshiisa caadiga ah kala dhantaalanto haddii uu guul darro dareemo. waliba inaga Soomaaliyeed nahay waxaan ugu badan caadifada dadka caadifiyiintana inta badan haddii ay guul darrada ku dhacdo dareenka warwarka iyo warbahaarku waa ku bataa oo waxa laga yaabaa in ay noloshooda kala dhantaalanto. haddaba halkan waxaan idinku soo gudbin doonaa saddex arrimood oo la gudboon qofka laga guuleysto xisbigiisa. saddexda arrimood arrinta koobaad waxa ay tahay in aad aaminto qadarka. waxaad isku daydaa hadii goor inaad kor u qaaddo iimaanka qadarka. iimaanka qadarku waa mid ka mid ah lixda tiir ee iimaanka, kaasoo ah inaad aaminto waxaan adduunka ka dhacayo oo dhan inuu Ilaahay already sii ogaa, inay waxaan oo dhan sii qoran yihiin. waxa already sii ogaa oo qoran in isku wareeriso ma aha, oo waxa laga yaabaa inaad calan qaadatay, waxa laga yaabaa inaad Facebook followers, waxa laga yaabaa in dakhli badan ka baxay si xisbigaas uu soo baxo. laakiin haddana qadarka Ilaahay waxay dhacayay ka weyn. inagu waxaynu nahay dad la abuurtay oo Ilaahay abuurtay, marka inagu awood uma lihin inaynu xukunno adduunka iyo sida uu socdo. Ilaahay quraankiisa waxa uu ku leeyahay wa yakhluqu ma yashaa wa yakhtaar. ilaahay ayaa wuxuu doonaa abuura, wuxuu doonaa inuu dooro, wa yafcalu Allahu ma yashaa. ilaahay wuxuu doonaa isaga sameeyo. sidoo kale nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam xadiis macnihiisu ahaa ilaahay wixii ugu horeeyay oo abuuray waxa uu ahaa qalin. deetana wuxuu ku yiri qor, deetana wuxuu yiri qalinkii maxaan qoraa, deetana wuxuu yiri waxyaabaha dhacaya ilaa inta uu qiyaamo dhacayo. xadiis kalena waxa uu ahaa kataba Allahu maqadir as-samawati wal ard قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. يعني وحاو قري وحلالي waxa dhacaya adduunkan intaan adduunkan abuurin kun oo sano ka hor. marka qodobka koowaad kula gudbaan waxa weeye inaad aaminto qadarka iyo inuu Ilaahay yahay qofka go'aanka gacanta ku haya. sabab marka uu ururta abeerata ma jirto. arrinta labaad ee la gudboon waxa weeye isagana taageeraha laga guuleystay inuu u fikiro hab ballaaran, inuu maskaxda ballaariyo. maxaan uga jeedaa waa inaad u fikirtaa in madaxweynaha soo baxay kuleyba uu noqonayo madaxweyne Soomaaliland, inaan noqonayo madaxweyne qabiil, inaan noqonayo madaxweyne degmo, laakiin waxa uu madaxweyne noqonayo dhammaan Soomaaliland oo dhan. waa inaad ogaataa dhammaan nimankan siyaasiyiinta ee musharaxiinta inay asxaab yihiin oo inaga seekin dhow yihiin. sidaa daraadeed wax la isku wareeriyo ma ahaba. sidoo kale waa inaad noqotaa qof laga guuleystay oo sharaf leh oo had iyo goor haneyn kara. sidee sharaf ku yeelan kartaa marka laga guuleysto inaad haneyso? taana Soomaalida aad iyo aad ay ugu adag tahay. inaad haneysaa adiga ayaa ay dan ku tahay, waxa ka baaya stresska, warwarka iyo warbahaarka noloshaadii oo dhan caadi ayaa aad u wadanaysaa. arrinta saddexaad ee la gudboon qofka taageeraha ee laga guuleysto waxa weeyaan in uu la yimaado hababka isdhaafinta, istejinta iyo ku mashquulida wax kale. waa inaad isku daydaa marka aad maqasho ee koowaad ee laga guuleystay musharaxaagii inaad meel gaar ah tagto dabeetana aad qaylido. taas waxay ku saacidaysaa in la soo daayo hormoonka endorphin la yiraahdo, kaasoo ka saacidaya in naftu tagto. sidoo kale waxa kula gudboon inaad nolosha ku mashquusho waxyaabo kale oo aad ku fikirto sida inaad film daawato, inaad hawlaha shaqaysato, isaga wato inaad waxa ku warwarin. taas waxay ku saacidaysaa in si loo siiso. sidoo kale haddii agtaada laga doodayo waxay isku dayeen inaad dooda gasho haddii kale lagu kacaya. saddexda arrimood aynu soo sheegnay waxa weeye waxyaabaha ka saacidaya inay noloshaada caadi kugu socoto. haddaba haddii aad u malaynaysaa inuu muuqaalkan yahay mid ku anfacay, waxaad like garaysaa muuqaalkan. sidoo kale waxaad subscribe garaysaa channelkan adigoo subscribe garaynaya halka hoose ee muuqaalkan hoostiisa ah.